بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa haddii uu ku asiibay faqri oo doonayso inaad shaqo deg ah aada hesho si aad oga baxdo baahida iyo dhibaatada biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaad akhrinaysaa suuraddan aan kula wadaagi doono, qaabkan kuu sheegi doono baadna u akhrinaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. muddadan kuu sheegi doono baadna akhrinaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa oo aad ku guulaysanaysaa muraadkaaga iyo dantaada iyo qasadkaaga iyo ujeedka aad leedahay ee khayrka ah. walaalayaal, sida aan idinku soo sheegayba ciwaanka, maanta waxaan doonaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa inaan soo gudbinno suurad haddaad akhriso ilaahay subxaanahu wa tacaalaa shaqo wanaagsan oo munaasab kuu ah kuu sakhirayo, weliba ilaahay kuu barakaynayo, weliba baahidaada iyo faqrigaagana meesha ay ku dhammaanayso biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. walaalayaal, fawaa'idda waxaan jeclanahay inaan mar walba idinla wadaagno, idinkana nala jeclaada inaad laygta noogu dhufataan fiidiyowga si uu u dhaqaaqo janalka, sabskraibtana noo riixsi haddaadan nagu soo biirin si uu u noqdo janal koraayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. waanu u ducaynaynaa dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee janalka sabskraib saaray ama laygtiisa riixay. waxaan ugu ducaynaynaa insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. qof walba muraad khayra buu leeyahay, muraadkiisa khayrka allah u sakhiro biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. walaal, waxa kaaga nusqaamayo ma jiro laygta ood noo riixdo, annagana waxtar bay noo tahay, adigana waxba kaama goynayso, waayo janalka ayaa hor u soconayo. haddaad doonayso janalkan inuu sii jiro oo wax uu noqdo janal oo fawaa'id fara badan soo gudbiyo, haddaad doonayso inuu noqdo, walaal, haddaad jeclaysatay mowduuca aan ka hadlo, waxa weeye ku dhufo laygta, sabskraibtana saar, janalkana intaad taageeri karto taageer si janalka uu hor ugu socdo oo uu koro biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. 1000 sabskraib baan gaari laanahay, na gaarsiiya walaalayaal, walaalahayga soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba ii sheer gareeya si janalka uu u gaaro 1000 sabskraib biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. muddo dhow si uu u gaaro, weliba hadda 500 baan kusii dhownahay, laakiin waxaan rabaa 1000 inaad i gaarsiisaan. intaa kadibna insha allahu tacaalaa janalka uu sii kori doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. intaa haddaan naga soo gudbo intii codsiga ahaydeen aniga watay, walaal, waxaa lagaa doonayaa inaad akhriso suurad wanaagsan. waa suurad aada u qiimo badan, waa suurad allah subxaanahu wa tacaalaa uu soo dejiyey, barakadeedii iyo fawaa'ideeda iyo axkaanteedii iyo shareecadeedii iyo wanaageedana wadato. waa suuradda lagu magacaabo suuratu muzammil. waa suuradda ku bilaabato yaa ayuha almuzammil qumi alleyla ilaa qaliila. suuraddaa weeye walaal, suuraddaasaad akhrinaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. waxaad akhrinaysaa 41 goor, 41 jeer baad akhrinaysaa. hal fadhi baad ku akhrinaysaa, muddo ugu yaraan 3 maalmooda baad akhrinaysaa. halkii fadhina 41 baad akhrinaysaa, 3 maalmood ugu yaraan baad akhrinaysaa, ugu badnaan 7 beri baad wadaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. haddii qalbiga niyadda aad wanaajiso, kalaamuullah inuu yahay kalaamuraxmaan, inuu yahay wax ilaahay lagu baryo wixii ugu qiimaha badnaa inuu yahay, haddaad sidaa qalbiga geliso biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa waad guulaysanaysaa, muraadkaagana si deg deg aad ku helaysaa, shaqo wanaagsan oo weliba munaasab ku ah ayaad helaysaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. marka walaal, niyadda hagaaji, niyadda wanaaji, inama alacmaalu binniyaat. camal walba wuxuu ku xiran yahay niyadda ayuu ku xiran yahay. haddii camalkaa uu wanaagsan yahay,
layaddana aada wanaajiso iswaafaqaan ilaahay waanu hagaajinayaa wax walba oo naga hadlaysnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. walaal suuradaasaad akhrinaysaa 41 goor insha allahu tacaala. dee sida khayrka ku jiran ilaahay baa yaqaanee, sida khayrka ku jirana ilaahay hanoo yeelo. sidaasaan ilaahay ka barinaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. intaasaan doonayay maanta inaan idinla wadaagsado. waadna mahadsantihiin walaalayaal, meel kasta oo daafaha dunida ka joogtaan. waxaan idin leeyahay maalintuu ha idiin samaato haddaad maalin joogtaan, habeenkuu ha idiin samaado haddaad habeen joogtaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.